نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصooyinka nebiyada. qisada aan maanta ka sheekayn doono waxay ka hadlaysaa geeridii aabbaheen aadam calayhi salaam. markii ay geeridu u timid aadam calayhi salaam wuxuu u yeeray carruurtiisa isaga oo ku yidhi, maandhooyinow waxaan doonayaa inaad ii doontaan ama aad ii keentaan midhaha jannada. markaasay dhammaantood waa ilmihii aadam ee galeen raadinta midhaha jannada iyaga oo ka raadinaya dunida. intii ay raadintu midhaha jannada ku jireen ayay waddada waxay kula kulmeen malaa'ig sida xunuudkii iyo kafantii lagu aasi lahaa aadam calayhi salaam iyo waxyaabihii qabriga lagu qodi lahaa. waxay malaa'igtii weyddiiyeen ilmihii aadam, halkee ayaad u socotaan? waxay ku yidhaahdeen, aabbaheen baa xanuunsan, wuxuu doonayaa midhaha jannada. saa malaa'igtii ayaa ku yidhi iyaga, haddaba laabta oo dib ugu laabta aabbihiin, waa uu naf baxay yacnii waa uu geeriyooday. saa intaasi kadib waxay malaa'igtii u yimaadeen aadam waxaa markaasi la joogtay hooyadeen xaawa. xaawo markii ay aragtay malaa'igtii u soo socotay aadam waxay aqoonsatay in malaa'igtii ay u yimaadeen maanta inay nafta ka qaadi doonaan saaxiibkeed ama ninkeeda oo feertiisa laga abuuray. ka dibna waxay ku dhegtay aadamna wuxuu ku yidhi, iddaa xaawoy, waxaan dhashay adiga hortaa ee isku kayadaa aniga iyo malaa'igta rabbigay. saa intaasi kadib waxay malaa'igtii ka soo saareen naftii oo meereen jidhkiisa oo kafneen una mariyeen xunuud waa udgoon. dabadeed waxay qodeen qabrigii aadam oo ku tukadeen, dabadeedna aaseen. intaas kadib waxay dhaheen, ilmo aadanow, waa inaad sidaan oo kale u duugtaan ama aad u aastaan meydadiinna. ibnu isxaaq wuxuu yidhi, geeridii aadam kadib qoraxda iyo dayixuba waxay madoobaadeen 7 habeen iyo 7 maalmood. waxaa sidaasi oo kale la soo wariyaa markii uu aadam geeriyooday in dhammaan uumanka oo dhan ay ooyeen 7 maalmood. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.